kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkan oo aanu si xidhiidha idinku soo gudbin doono xeerka guddida hay-adda dhowrista tayada jamhuuriyadda somalilan xeer lambar 8 xariijin 2014 xeerkani waxa uu ka gudbay golayaasha sharci dejinta somalilan 20 bishii May 2015 waxaanu madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud sinaayo uu wareegta madaxweyne ku dhaqangeliyey 17 bishii Juun ee 2015 haddaba waxaan barnaamijkan kusoo gudbin doonaa qodobada xambaarsan yahay xeerka guddida hay-adda dhowrista tayada jamhuuriyadda somalilan xeer lambar 8 xariijin 2014 xeerkaasi oo ka kooban 45 qodob waxaynu soo qaadan doonaa qodobkaasi koowaad oo noqonaya erey bixino tayo waxaa loola jeedaa waxtarka iyo fayaqabka shay ama badeecadaha agabka waxaa loola jeedaa dhammaanba badeecadaha kala duwan ee yimaada dalka anfaaci waxaa loola jeedaa wax kasta oo la quuto dhowridda waxaa loola jeedaa ilaalinta heerka tayo wanaagga dhammaanba badeecadaha dalka soo gelaya amaba ka dhoofaya guddi waxaa loola jeedaa guddida hay-adda dhowrista tayada fasiraad wixii aanu xeerkani si cad u qeexin waxaa loo fasirayaa si waafaqsan shareecada diinta islaamka dastuurka dalka iyo xeerarka kale ee la xidhiidha xeerkan iyo haddii loo baahdo xeerarka caalamiga ah ogolaanshaha waxaa loola jeedaa ogolaanshaha ay hay-addu aqoonsi rasmiga ku siinayso shakhsiyadda qaanuuneed ee gudashada howlgalka goob cayiman ee sugidda tayada shahaadayn waxaa loola jeedaa qoraal dhinac saddexaad ah oo ku salaysan go'aamo ay la socdaan dib u eegista wax soo saarka habka iyo hanaanka iyo shakhsiyaadka buuxiyey shuruudaha gaarka ah xeerka lagu dhaqayo waxaa loola jeedaa shuruuc wada socda oo la xidhiidha tubta lagu dabaqayo ama habka lagula qabatimayo isku xidhka dhismaha rakibaadda baadhitaanka muunadda amaba aalad dhoofin waxaa loola jeedaa tirada agabka loo qaadayo amaba la keenayo somalilan weel ama kontiinar waxaa loola jeedaa gal ka samaysan biro oo lagu qaado alaabada si bidqabkooda loo sugo agab waxaa loola jeedaa shay kasta oo dalka yimaado oo u baahan in la tayeeyo komishanka waxaa loola jeedaa xubnaha komishanka dhowrista tayada somalilan mas-uulna ka ah dhammaanba awoodaha uu xeerkani tilmaamayo hay-ad waxaa loola jeedaa hay-adda dhowrista tayada sida ku xusan qaybta 11aad been abuurad waxaa loola jeedaa alaab kuwaasi oo laga been sheegayo asalkooda dokumenti waxaa loola jeedaa xog kasta xidhiidh kasta amaba xaqaa'iq kasta oo la kaydiyo soo dejin waxaa loola jeedaa agab kasta oo dalka la keeno ujeeddo kasta ha loo keene kormeere waxaa loola jeedaa shaqaale ka tirsan hay-adda oo qoraal ogolaanshiya ka sita agaasimaha guud si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo una dabaqaan qodobada xeerkan qodobkaasi koowaad oo aynu kaga hadlaynay erebixino oo sii socon doona oo aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena labaadna intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa